kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa All Banaadir Online waxaan daawadayaal halkan idinkugu soo gudbinaynaa oo aad daawad doontaan warbixin aan si gaar ah kaga hadli doono madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo kulan taariikhi ah la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxaan warbixintan idinkugu soo gudbinaynaa oo aad ku daawan doontaan maxay ka wada hadleen madaxweynaha iyo dhalinyarada Soomaaliyeed maxay soo bandhigeen dhalinyarada oo baahiyaha oo ay qabaan maxaase dawladda Soomaaliya looga baahan yahay oo madaxweynuhu u ballan qaaday dhalinyaradaas inay u qaban doonto arrimahaas iyo arrimo kale oo dhowr ah ay kala hadleen madaxweynaha dawladda Soomaaliya madaxweynaha ayaana ballanqaadi kala duwan u sameeyay dhalinyaradaas isagoo sidoo kale dhiirigelin u sameeyay dhalinyaradaas kulan la dardaarmay in dalkooda iyo dadkooda ay u istaagaan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen maadaama dhalinyaradu ay yihiin laf-dhabarta dalka iyo dadkaba wuxuuna aad u bogaadiyay dhalinyaradaas ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kulanka la qaatay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo kala hadlay doorka ku aadan dib u dhiska dalka adkaynta dawladnimada hoggaanka iyo sidoo kale horumarinta bulshada madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen dhalinyaradan oo la soo ururiyay oo ka mid ahaa taageerayaasha dawladda ayaa tilmaamay in dhalinyaro badan oo ku xiranaa xabsiyada shisheeye ee dawladdu dib u soo celisay kuna soo celisay dalkooda hooyo kuwaas oo haatan sharaf iyo karaamo ugu nool dalkooda qaybna ka ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u taagan in ay mustaqbal wanaagsan u horseedaan dalka iyo dadkaba dhalinyarada Soomaaliyeed waa cududa dalkeena waa waajib qaran oo lagu dhiirigelinayo kamera dhalinta hiigsigooda iyo sidoo kale dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka dawladda aan hogaaminayo waxaa ka go'an xaqiijinta kaalinta dhalinyarada ee siyaasadda arrimaha bulshada difaaca dalka iyo dhaqaalaha madaxweynaha ayaa dhalinyarada la wadaagay dadaalka dawladdu ay ku bixisay awoodda dhalinyarada ee hogaaminta hay'adaha dawladda iyo sidoo kale ciidanka qalabka sida taas oo lagu xaqiijinayo qorsheynta ku qotanta xaqiijinta dawladda Soomaaliyeed ee horumarinta ilaalinta madaxbannaanida iyo sidoo kale sharafta shacabka dhankooda dhalinyarada goobjoogka ka ahaa kulankan ayaa madaxweynaha kaga mahad celiyay mudnaanta uu siiyay dhalinyarada iyo sidoo kale kalsoonida uu ku qabo awoodda dhalinyarada waxa ayna soo bandhigeen sida ay uga go'an tahay mideynta xuduudda dhalinyarada oo ah awoodda ugu badan ee bulshada si looga midho dhaliyo qorsheynta la dagaalanka qabyaaladda iyo sidoo kale musuqmaasuqa dawladda uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ballanqaadyo buuxa u sameysay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed intii ay xilkan haysay waxaana kaalinta ugu weyn ee madaxda dawladda Soomaaliya lagu amaanay qayb ka ahayd soo deynta dhalinyaro badan kuwaas oo ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalal shisheeye waxaana xabsiyada ugu badan ee dhalinyaradaas laga soo daayay ka mid ahaa xabsiyo ku yaala dalka Liibiya dhalinyaradaas Soomaaliyeed xabsiyada Liibiya waxay u galeen iyagoo raadinaya nolol ka baxsan midda Soomaaliya ku haysatay waxay raadinayaan nolol ka wanaagsan midii ay ku jireen marka Soomaaliya ay joogeen waxay raadinayeen in ay gaaraan dalalka shisheeye gaar ahaan qaaradda Yurub waxayna sugayeen nolol dhaanta midda ay ku jireen markii hore balse waxa ay galeen mid ka liidata tii ay ka soo tageen taas oo ah xabsigaas ayna kala kulmayeen jirdil iyo garaacis joogto ah iyo handadaad iyadoo lacag la weydiisanayay qoysaskooda si loo soo daayo looguna soo celiyo dalkooda ama in ay hore u sii baxaan waalidiin badan ma aysan awoodin bixinta lacagaha la weydiinayay waxaana dhalinyaradaasi ahaayeen kuwa si har iyo habeen ah loo garaaci jiray waxaana waalidiintooda loogu dhiibi jiray taleefanka xilli la handadayo oo la garaacayo waalidiin badan ayaa aad kaga xumaaday dhalinyaradooda iyagoo aanan lahayn awood lacageed oo ay ku dayn karaan si halkooda ay kaga sii wataan tahriibkii ay ku guda jireen dawladda Soomaaliya way u istaagtay in dhalinyaradaas ay soo deyso xabsiyo badan oo Liibiya ah ayaana laga soo fasaxay dhalinyaradaas Muqdisho ayaa lagu soo celiyay waxaana qaarkood ay noqdeen kuwa ka mid noqday ciidamada dawladda Soomaaliya halka kuwa kalena ay noqdeen kuwa shacab ahaan magaaladooda kaga shaqeysta dawladda Soomaaliya waxa la tilmaamaa in kaalinta ugu weyn ee dhalinyarada ay siisay ay tahay in mudnaan gaar ah la siiyay dhalinyarada waxaana shaqooyinka ugu badan ee dawladda Soomaaliya qabta rag dhalinyaro ah waxaa lagu tilmaamay in ay yihiin dhalinyaradaas kuwa madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo booskaas ugu talagalay in ay ka howlgalaan waana mudnaanta kuwaad ee dhalinyarada la siiyay marka loo eego shaqada dawladda waa dawlad shaqadeeda ay wadaan dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar madaxweynaha ayaana dhowr mar ku celceliyay in uu sii wadi doono adkaynta dhalinyaradaas ballamadii lala galay oo ah in shaqooyinka ugu badan ee dawladda iyo tiirarka ay ku taagan tahay ay noqon doonaan dhalinyaro waana laga dhabeeyay qayb ka mid ah marka laga soo tago dhalinyaradaas kulanka la qaatay madaxweynaha dawladda Soomaaliya kana mid ah dhalinyarada aadka u taageera siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro kale oo ku nool caasimadda dalka ee Muqdisho waana dhalinyaro xilligan dhibaatooyin kala duwan ku nool qaarkood waxaa haysato duruufo dhanka nolosha ah cid ogna ma jirto dawladda Soomaaliya miyaysan wax u qabanin waa isweydiinta taala marka kuwaas laga soo tago waxaa jira kuwa kale oo iyaguna wax bartay waxay ku nool yihiin caasimadda dalka ee Muqdisho ma haystaan shaqooyinkii ay u baahnaayeen qaarkood xitaa shaqooyin aad u liita
ayay qabtaan iyagoo aanan ka helin wax qarashaad ah halka kuwa kale ay ka niyad jabeen maadaama waalidiintooda ay lacag ka bixinayeen xilligii iskuulka iyo xilligii jaamacadda dawladda Soomaaliya dhowr jeer ayay ka codsadeen in shaqooyin loo raadiyo si ay u noqdaan dhalinyaro hami fog kale nolosha balse ma aysan dhicin oo dawladda Soomaaliya dhalinyaradaas ilaa iyo hadda tallaabo muuqato oo u qaaday malahan isweydiinta taala ayaa waxa ay tahay madaxweynaha dawladda Soomaaliya waa uu ballan qaaday in dhalinyarada la siin doono mudnaanta koowaad ma waxaa jira dhalinyarada astaamo lagu kala socdo oo qaarkood shaqo lagu siiyo halka kuwa kalena loo sheego inay isaga tagaan goobta mise waxaa jira qof jeclaysi dawladda Soomaaliya dhexdeeda ka jira waa su'aasha dad badan ay ku wararsan yihiin misna jawaabteeda la la'yahay xilligan madaxda dawladda Soomaaliya ayaana laga sugayaa in jawaabta ku haboon ay ka bixiyaan marka aad eegto dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku mid ah marka la eego dhaqanka iyo diinta misna qaarkood ay yihiin kuwa mudnaan la siiyay dawladda Soomaaliya shaqooyin fiican ay ka haystaan halka kuwa kalena yihiin kuwa ku dayacan magaalada Muqdisho qaarkood nolol maba ku jiraanba marka loo eego nolosha ay la daalaadhacayaan halka kuwa kale yihiin kuwa iska xamaasho oo aan haysan shaqo sidaas u weyn waxaa soo haraya waa kuwa iyagu diiday shaqadaas inay ku shaqeeyaan dawladda Soomaaliya ka waayay kaalintii ay kaga baahnaayeen guryahooda ayay joogaan iyagoo lagu bixiyay qarashaadkii ugu badnaa haday ahaan lahayd iskuul ama jaamacad labadiiba waa ay soo dhameeyeen waxayna joogaan Muqdisho mana haystaan shaqooyin waalidiin badan waa ay ka niyad jabeen in ubadkooda ay wax baraan marka loo eego shaqooyinka ay heli waayeen kuwii ka horreeyay iyaga qoysaska qaar markii ay arkeen ubadkii yaryaraa kuwii ka horreeyay ama ka waaweynaa oo wax barta misna shaqo la'aan hoygooda ku ah ayayba go'aansadeen inay iska daayaan waxbarashada iyo jaamacadda waxaana jirta arday badan oo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare balse gurigooda xilligan iska joogo iyagoo aan u meeldayeynin meelaha kale ee shaqooyinka ka jira kaliya dawladda Soomaaliya ayay kaga baahnaayeen shaqo iyo gacan qabad iyagiina ma aysan ka helin oo waxay yihiin kuwa guryahooda baaqi ku sii ah iyagoo niyad jabsan ayay qaarkood joogaan halka kuwa kalena ay ku fakarayaan inay dalka iskaga tagaan si ay u helaan nolosha ay ku jiraan mid dhaanta kumanaanka kun ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka xilligan waxay rajo ka qabaan in maalin ay heli doonaan shaqadaas oo ay ka heli doonaan dawladda Soomaaliya waxaana dawladda Soomaaliya ay kaga fadhiyaan inay shaqo abuur u sameyn doonto hoggaan badan oo dawladda Soomaaliya waa isbedeleen balse isbedeladaas dhalinyarada Soomaaliyeed fursado qaarkood ayaa ku helay halka kuwa kalena ay yihiin kuwa waqtigooda iyaguna suganaya daawadayaal intaasi waxaa ku dhan warbixintii aan sida gaarka kaga hadlaynay madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo mudnaanta koowaad siinaya dhalinyarada Soomaaliyeed xilli ay jiraan dhalinyaro Muqdisho ku nool kuwaas oo aanan haysan nolol wanaagsan halka kuwa kalena ay baahi xoog leh u qabaan shaqooyinka ay ka heli lahaayeen dawladda Soomaaliya intaas waxaa ka baxsan dhalinyaro dawladdu ay shaqo gelisay kuwaas oo kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha dawladda Soomaaliya dhalinyaro u badan taageerayaasha dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha ayaa kulan ku qaatay Muqdisho arrimo dhowr ah ayay ka wada hadleen waxayna kaga mahad celiyeen kaalin ay sheegeen madaxweynaha inuu ku bixiyay soo deynta dhalinyaro badan oo ku xirneed xabsiyada dalka Liibiya iyo sidoo kale xabsiyo kale oo caalamka ah waad ku maasantiin la socodka iyo la saanqaadka warbixintan iyo guud ahaanba warbixinada iyo wararka ka baxa All Banaadir Online